khatarta waa in la qaado oo loo badheedhaa sababtoo ah khatarta ugu weyn ee nolosha waa inaadan waxba isku dayin. haddii aad rabto inaad ku noolaato nolol farxad leh, ha ku xidhin qof ama shay ee ku xidh hadaf. wax kasta oo aad qorshaysay way ku sugayaan inaad samayso, wax kasta oo aad rabtaana ayaa sidoo kale ku doonaya, laakiin waa in aad tallaabo qaadaa si aad u hesho. haddii qofka faaruqnimadiisu korodho, nolosha raaxadeeda ayaa ku yaraata. waxna ha ammaanin ilaa aad tijaabiso, hoosna ha u dhigin adigoon tijaabin. qofka caqliga badan kama murugoodo wax uusan haysan, balse wuxuu ku farxaa wuxuu haysto. noloshu waa mid gudaha ka timaada, markaad gudaha ka guurto, noloshu waxay isu bedeli doontaa bannaanka. qof kasta iyo xaalad kasta wanaag ka raadso, mar walba waad ka heli doontaa. in caqligaagu koray waxaa adayn u ah in aad tamartaada geliso wax ku anfacaya labada daaroodba iyo in aad ka fogaatay waxyaabaha aan macnaha kuu lahayn. maskaxdaada u fur aragti cusub oo ku saabsan caalamka cusub. maskaxdeen waa qaali, waxay awood u leedahay inay furto fursadaha aan dhammaadka lahayn. waxaa jira 3 joogto ah oo nolosha ah: isbeddel, doorasho iyo mabaadida. run ahaantii ma jiraan wax aan macquul ahayn adduunkan haddii aad keliya maskaxdaada geliso oo aad ilaaliso sida wanaagsan ee aad u qabanayso. qofka aad maanta tahay waxaa kaa dhigay wixii aad hore u soo kabatay. haddii aad doonayso in aanad ka shalayn bari, maanta qaba waxaa kula gudboon. hana qaban waxa fudud ilaa iyo waxa saxda ah mooye.